Assalaamu calaykum. U soo dhawaada qisooyinka nolosha. Qisada maanta waa maskiinkii hodanka ahaa. nin oday oo da' ah misana carruur aan dhalin haddana qaxooti ah oo aan degganayn dhulkiisa hooyo ayaa beri wuxuu ku noolaay waddanka Masar. waxa uu geli jiray ama uu ku noolaay guri yar oo cariish ah, cid wax siisa ama u gargaartana ma aysan jirin. haddana noloshiisa waxay ahayd mid la yaab leh oo dadka deriska la ah ay isweydiin jireen talow yaa quudiya odaygan gaboobay. dadku mar walba waxay arkaan isagoo xiran dhar qaali ah, gurigiisana markii ay hormarayaan dadku waxay uriyaan cunto aad u udgoon oo aan ahayn ay ku urin jireen guryaha caadiga ah. wejigiisa wuxuu ahaa mid aad u iftiima oo aanay wax daciif iyo tacab ahi ka muuqan. haddaba waxaa dhacday in maalin ciid ah ayaa waxay dadka xaafadda isugu yimaadeen farxad weyn oo lagu tukado salaada ciidda. waxaana ka mid ahay odaygii faqiirka ahaa. waxaana su'aal weydiiyey nin ka mid ah dadkii meesha joogay oo yidhi, adeer waxaan ku weydiiyey, dadka xaafadda ayaa ka mid ahay ilaa in muddo ah, mar kasto oo aan wax u qabta isniraahno waxaanu aragnaa adigoo ku nool nololtayna ka fiican, wax shaqo ahna ma haysid, maxaad qoodata oo aad ku nooshahay? odaygii da'da ahaa wuxuu ku jawaabay jawaab dadkii oo dhan ka yaabisay. wuxuuna yidhi, waa runtii wax camal ama shaqo ah ma hayo, cid bini'aadam oo ii gargaartana ma jirto, laakiin waxaa la xiriira allah oo iska leh uumkan samaday arlaada, isaga ayaan ii quudiyo. ninkii ayaa wuxuu odaygii ku celiyey, adeer allah annaguba waanu barinaaye ma si naga duwan ayaad u baridaa? odaygii waxa uu yidhi, waxaan allah ka baryaa oo aan ku ducaystaa, ilaahayow ii quudi sida aad u quudiso tukaha yar, kadibna waxaan helaa waxaan doonayo iyadoo aan ugu tago gurigayga wixii aan ilaahay weydiistay. ninkii waxa uu weydiiyey odaygii, adeer bal iiga warran ducadan maxaa ku duugan? odaygii intuu ilmeeyey ayuu yidhi, waa arrin cajiib ah, allah sida uu u quudiyo tukaha yar. waxaa jirta in hooyada tukaha weyn ahi marka ay dhasho ukunta waa ay dhigtaa wayna huurisaa ilaa inta uu ka gaarayo xilliga uu dilaacayo. marka uu gaaro xilligii dilaaca ay afka ku dhufato ayaa waxa ay rajaynaysaa inuu ka soo bixi doono dhal madow oo iyaga u eg, laakiin waxaa ka soo baxda dhallaan yaryar oo cadcad oo aan madow ahayn sidii tukihii weynaa, wayna ka argagaxdaa. dhasha cad wayna ka baxsataa. marka ay sidaa ugu tagto dhashii yaryaray waxay u baahan yihiin wax ay cunaan, ileen waa nafleeye. intaa kadib allah wuxuu baalasha dhasha yar ka soo saaraa ur la yaab leh oo ay ka dhashaan tixsi, kadibna tixsigaas ayay cunaan dhashii oo ay ku noolaadaan. muddo kadib waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isbeddesha baalashii midabkoodii oo noqda madow. maalinta ay wada madoobaadaan ayay hooyadii oo dusha ka ilaashin jirtay ku soo noqotaa oo u timaadaa, maadaama uu madowga ay rabto oo u noqday. isla marka ay u timaado waxaa baabaa urtii, waxaana dhammaada tiqsigii maadaama ay hooyadii u qaraabayso. waana cajiib arrinka. aniguna sidaas ayaan ilaahay u baryaa oo iigu quudiyaa sida tukaha yar. dabadeed waxa uu dhammaan dadkii dhegaysanayay oo la yaaba habka uu allah u quudiyo tukaha yar, waxayna ku dhawaaqeen allahu akbar, jazaaka allahu khayr.